qabqab dhaafay bay laba qabiil qaran ku weydaa way tiraahdaa Soomaalidu. Labadan deer ayaa goor casar liiqa dagaal isku bilaabay. Waxa ay isku dilayaan ninkii reerka u sarrayn lahaa inuu mid walba noqdo. Reerku haddii waa ku filay labadoodaba ogow. Inta badanna waxay isku dilaan dheddiga. Labadii waxay istilaanba mid baa laga awood batay oo dhulka loogu tuuray. Ka dhulka loogu tuuray iyo kan taagan geesaha ayaa isugu marmay. Markaa ka jiifaana ma kici karayo, kan taaganina kalama bixi karayo geeska. Wuxuu isku dayay inuu geeska kala baxo, laakiinse wuu kala bixi kari waayay. Haddaba Soomaalidu waxay ku mahmaadaa iyay is cunaysaa libaax iskama celiso. Waxa la liyeedu marka aanay istilaynin libaaxa iyadaa ka adag oo way ka fara badantoo faray ku dishaa. Laakiinse marka iyada is cunayso libaaxu mid buu dilaa. Imika tan waxaa ka dhigan dadka Soomaalida ee walaalaha ah ee maalin walba maalayaanka isku dilaya ee cadowga ku soo maqayay. Cadowga ayay isku nugleynayaan. Cadowga ayaa ka faa'iidaysanaya. Habeenkii gobolkii baa dhacay. Giddiga habeenkii oo dhan madaxay iskula jireen. Waxaad ogtahay keenta inta xawayaan iyo duurjoog joogta iyo bahalo. Salaadii hore ayaa imika waagii baa beriyey. Dacaw ayaa niskii dambe xalay walaalkii ku bilowday kii jiifay. waayo kama kici karo. Kiibay keliyaha ka daruurisay. Hilibkiisii bay cunaysaa. Halka kii kale walaalkii ahaana u haya cadowga. Ninkan jiifaa haddii uu kan geeska aanu ku hayn lahayn dacwada wuu ka carari lahaa. Laakiinse cidda dacwada u qabatay ee cadowgiisa u jabisay waa walaalkii oo kula dagaalamayay waxaan waxba ahayn. Maanta wuu qoomeynayaa. Wuxuu ka xun yahay walaalkii uu heshan jiray, isla dhasheen, isla daaqi jireen, meel wada mari jireen, cadowga iyo bahalaha iska dugsan jireen, in maanta hortiisa lagu cunayo oo isagoo caacda haya oo naftu ku jirto ay dacwo googoosatay. Waar iga qabo, waar iga celi malaha. Isagoo qaylinaya ayay dacwadii dhammaysatay. Imika hilibkii bay sii feenanaysaa lafihii. Hilibkii intii badneed way dhammaysay. Waxa ay maraysaa inihii ugu dambeeyey. Isagu markuu waagii beriye barqa dheer noqotay shalay baa ugu dambeysay inuu doog cuno kii labada taagnaa. Imika madaxii baa ka fududaaday. Aysa sugnaayeen waayo diyaaradii mar haddii calooshii lagala baxay intii badneed hilibkeedii la cunay si hore way ka fududaatay. Hadda ayuu doogii cunayaa. Dacwo waa ka dheragtay. Nasiibkeeda waraabe oo haddii jirraqda soo uriya oo la yidhaahdo waa xawayaanka ugu urta dheer oo 5 kilomitir ilaa 10 kilomitir warraqda ka uriya ama dhiiga xalay ma helin oo calaf ayaa la cunaa. Dacwad tani waxay tusaale u tahay qof kasta oo walaalkii kula dagaalamo waxaan waxba ahayn. Tani waxay tusaale cad u tahay Soomaalida. Qofku markuu walaalkii kula dagaalamayo waxaan aakhiro anfacaynin adduunyada anfacaynin. Waa sidan oo kale cadowga Soomaalidu uu fara badan yahay. Soomaaliduna iyada cadow isugu filan oo maanta meel walba isku dilaysa oo ku dagaalamaysa. Taasina waxay tusaale u tahay in aanu marnaba guulaysanin walaalkii cadow ka dhigtay. waa tusaale fiican dhallinyaray. Imika bahalkaasi wuxuu ka qoomoonayay maxaa kugu watay dagaalkii walaalkaa. waayo tarooma ayuu ka qaaday walaalkii hortiisa lagu cunay, bahal ku cunay. Isaga ayaana sabab u noqday in walaalkii maanta hortiisa lagu cuno. Dagaalka ka dhex dhacay ee malayacanka ah ee bilaajihada ah ee ay isku gondahaystareen ayaa sababay. Daawadee haddii aad hore noola joogtay waad ku maasantay. Haddii kalena nagu soo biirsin muuqaalada xiisaha badan leenanka ku soo gudjira inaad qayb uga noqoto lana wadaaga saxaabtaada aad baad u mahadsan tahay.